soo dhawaada saaxiibada qiimaha iyo qaayaha leh amba walaalaha aan jeclahay si kastoy tahay fadlan muuqaalkaas subscribe like share commentiga intaba noo saaro oo noo bobsi si aad muuqaaladayda kale aad u aragto maanta waxa inooga siraadanta qaybta lamaanahan waa Aasaam iyo Ramla yacni hore waxaynu ogeyn baraha bulshada marka ay soo gashay gabadha Ramla la yiraahdo bahdilka ay dadku ku hayn jireen iyagoo leh madasha tahay maanta hadda maxaa ka soo cusbooday arrinkii ilmo branki ah ayaaba dasheen ayaa arrinkii ka soo cusboonaaday wallahi waa arrin iga yaabiyay uur branki aan maqli jiray dhalmo branki ah ayaaba social media ka dhacday saaxiibayaal sidoo kale waxaan doonayaa inaan ka hadlo gabadhan iyada ah ila daawada gabadhan cadowgeedii intii soo taxaysatay tigidha siisay iyo dadkii xamaan jirtay ayaaba heesta loo qaadayaa gabadh iga dhalandheera dhali wey gabadhan wallaahi aad baan u qoslay yacni gabadhan markaa social media ku arkay aad baan u qoslay waayo waa gabadh in wax laga barta istaahisho weeye cashar ka barta haddaad qof ku xanto aad meelaha ku aragto waxaan ku leeyahay ku dabagalo jaanis ku raadso maalinta arooskaaga tigidhka u gee marka tigidhka arooskaaga u geysid sidan u bahdil oo waxaan ku leeyahay ugu jees gabadhan xitaa minid way diideen dhasato saaxiibayaal saasay u socotaa sidaasay u socotaa weydii kan arkay xaaladeedu gabadhan waa cirka saaxiibayaal waayo dadkii xumeeyay dadkii dabagalay dadkii warka ka sheegi jiray dadkii cadowga ku ahaa oo hor fadhiya ayaabay buufisay oo waxaan ku leeyahay cashar u dhigtay yaa haye baabuurkii nacabka waday boolkii mixnada u go'ay wallaahi gabadhan waan ka yaabay saco ku saco cidda wiilka dhalay waxaan ku leeyahay bishaa dhan xambaa loo fadhiyayaa ma arkaysa si islahayd sawtii socotay sawtan ma garanaysa xantu caadi bay ugu fadhidaa cidda wiilka xantu caadi bay ugu fadhidaa bil dhan waxaan ku leeyahay meelo kale xan lagama raadinayo arooska tay kaga dhigtay weydi kan arkaya saaxiibayaal sidoo kale siday faraha ugu fiiqaysaa waxa kasta kaga daran cadowga haa dhulkii bay u cantuugaysaa maasha allah tabaaraka allah roosadaa badisay haddaba saaxiibayaal aynu gudagalna lamaanahan la yidhi branki bay ilmo ku dhaleen adduunka yacni dumar ma khiyaami karo horta maanta anoo inana Ramla soo inan maaha ima khiyaami karto because qof waloo dumar ah uu garanaya hooyadu dhibka ay marto yacni amba markay dhasho xaaladeega wajigeedu isku bedelo sida uu noqdo uu garan karaa saaxiibayaal Ramla waa tan yacni maanta ma la oran karaa dhalmadeedu branki bay ahayd ma la oran karaa lama oran karo war saaxiibayaal haddaan hore uga soo hadlay Hanikaajal iyo Dayax oo nin uu daba socdo lahaa haniyo qaabo bal soo qarxiyay imikana labada nin ee waaweyni waxay taagan yihiin Ramlo uurka branki bay ku dhashay ilmaha maxay iskugu sawir weyday war Soomaaliyeey gabadhaas maalin hore ayaad gifka gasheen qalad ka gasheen nolosheeda aad qalad ka gasheen oo waxaan ku leeyahay aad ma dhasho maxaad walal weyday maxaad soo oran weyday aad ku lahaydeen alxamdulillah tabaarakallah maanta markuu ilaahay siiyay ma waxaad keenteen inaad baraha bulshada intay rag waaweyn soo fadhiistaan ay yiraahdaan ilmihii maxaa loo arki waayay ilmihii maxaad u sawir weyday war waxaanu giftiyaa u keenay oo xamar oo dhan wixii giftiyaalo dhan inaanta waa loo soo buuxiyay waxaan ku leeyahay dhakhtarkiiba wuxuu noqday wada gift ma qofba intuu iska soo dhaqaaqo waxaan ku leeyahay wardee walaal gabadha qaladka kala taga waxaan ku hadalna garan mayna ilmaadeerayaan gabadha yara miskiinta ah qaladka kala taga horaad waxaan ku leeyahay qaar badan oo hore dambi iyo qalad aad uga gasheen ilmaadeerayaan waxay oran lahaa miskiinta yar qalbiga oo ilaaliyo iska daaya wallaahi waa iga dhab yacni uurna branki ma noqon karo ilmo la dhalayna branki ma noqon karo saaxiibayaal waxyaabaha kaloo dhan ha dambeeyaane gabadha wejigeeda ayuu ka muuqdaa inay xanuun martay inay fool martay inay waxaan ku leeyahay ay rafaaday ya waxyaaba caqligan gelaya ayaabaa lagu sheekeeyaa laakiin waxaan caqligan gelaynin ha ku sheekeynina weliba nimankan waaweyn ayaa wax kasta wani sanadka raggii ma waxba laga bedelay systemkii ragga ma waxba laga bedelay
in wax badan laga bedelay baan yeelatay waayo nin dhan oo baraha bulshada isticmaalaan soo fursoonaya gabadhan ilmaheedii maxay noo tus weyday markay sii qaadanaysay ilmaha maxay noo tus weyday dee maxaa adiga kaa galay iyadaa dooratay inay nolosheeda private gashato iyadaa dooratay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa siiyey ilmaheeda way qarsan kartaa midda kale wuxuu ku leeyahay mar haddii ay uurkeedii baraha bulshada keeni jirtay maxay ilmahana u keeni weyday baraha bulshada qofku akhtiyaar maanu lahayn tiktok waxaa loogu imanayaa natus wax walba uurkaaga natus dhalmadaada natus si aad u dhalaysid falog nooga soo duub adoo dhalaya ilmiyo madaxii kaa soo baxay inaala midda kale wuxuu ku leeyahay madaxa maxay u gashan weyday dharkii akhtarka ahaa iyo dharkii buluug ahaa may gashaneen maxay dhar buluug gashataa gabadhan caadi bay u dhashay ilaahay baa u dhibiyareeyo daqiiqaday foolanaysayba markii saa u istaagtay dhag markiiba way dhashay ilaahay baa u dhibiyareeyo waa raaliyo gabadh ilaahay jeceliyo weeye markaa Soomaali Maxamed waxaan ku codsanayaa wax lagu hadliyo wax kala jira ma dulmiga bilaadanka ka daaya walibana maanta dumarkii waaba habiba nimankii Soomaaliyeed ayaaba qalad galayaba 100% oo inta halka soo istaagaan hayaay heblaayo ilmaheedina may tusin heblaayo waa la koray waa la soo qarxiyay ninkeedii maanu arkin calankiiba warniyo isku xishooda dad waaweyn baatiyin waxan wax ceeb walaa wax loo dul qaadan karay maaha waxan waa ceeb sokay ilmaada reeyal ragow is-cishta hora fanaaniin badan iyo hablo badan oo media isticmaala qalad looga galay waa xamdi bilanay waxaan ku leeyahay waa inansa kale qaaliladanay waa ramla yariisay warniyo reeraha isqabaya faamiliyada ka dhex baxaan oranaa waliye bilay ta iga yaabisa igu la yaabka badna hadda la weydiiyana waxay markaas anoo hurdo aan soo toosan ku soo toosay social media iyadoo haysataa ramlo ilmaha dhashay branki u ahaa dhakhtarkana way la soo heshiisay hooyadeed maxaa loo arki waayay walaalkeed maxaa loo arki waayay abtigeed maxaa loo arki waayay adeer ma khasabayna adeerkii abtigii aan soo bandhigay baraha bulshada aan ku soo bandhigo is-cishano ilmaada reeyal is-cishano sidan waa qalad is-cishano muhiim ah marka faamiliyada Soomaaliyeed ha jiraan ha joogan gabadhan waxa leeyahay ilaahay awlaadada ku barakeeyo warniyo waxa oran lahaa midiyaha lamaanayaashu midiyaas kaga baxaan wallahi qof walba tiisa ha u xoogsado baraha bulshada la soo istaago laakiin inaad waxaan ku leeyahay qofkaaga iyo ilmahaaga inaad waxa ku soo bandhigtid ma qurux badan midiyaha because cadowga iyo xaaska waa badanba وابي بدين بحد كبح بين نقطين بقى مركز صاحب القيمة هي قاية هالأد يد بالمأسنتين هل كنا نتاجنا هذا سوق قاعدي كوميتي هو مهم بالأرن كان إسقى محي كل طاي المهم برانكي قالوا قول الله إن منكي ووينا كشكان كان إليه محد نوتو سويدي المهاجي ما تدني ما أنا أراك محد نوتو سويدي يعني واحد نسي كل تداوده مسحبة مقلب بقى كوميتي هو مهم أركت إذا مركز كتماتد هذا هو إنه مهم عادي يبقى ما سنتين فضلا كنا قاعدة تقول عشان تسبسكرايب تلاقي تشارت كوميتي جاي تبعي نوصل مقال كنا كلام تقول مدونس تسيو نبض